xubinta awoodda dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdiwaasa Maxamed wuxuuna ku bilaabay anigoo magaca xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo xafiiska awoodda kobcinta ku hadlayo waxaan ku hambaleynayaa dhammaan ardayda ka soo ku qalin jabinaysa maanta heerka diplom saad la socotaanba deegaankeenna waxaa ka jira dhibaatooyin aad u badan xagga xirfadlayaasha iyadoo dhibaatooyinkan si loo xalliyo ay xukuumaddu culays saartay si awoodda xirfadlayaasha kor loogu qaadi lahaa ayaa sanad kastaba lagu talagalay in collegekan nursing collegekan jijiga in lagu xareeyo arday ka qayb qaadata dhibaatooyinka xagga caafimaadka saad la socotaanba collegekan waxaa la aasaasay 1990 oo iyadoo uu ku bilaabay heer certificate iyadoo 1996 uu bilaabay heer diplom anigoo aad ugu hambaleynayaa maanta ardayden ay iyaguna taariikhda soo galeen oo qalinjabintu ay tahay qalinjabintii iyadoo ay ku beegan tahay waqtigii millenniumka oo taas ay ka dhigayso mid ka duwan kuwii hore inaan dhex joogo ardayda qalinjabinaysa qaybtii labaad ka qalinjabinayso kollejka caafimaadka jigjiga fursaddan waxaa la siiyey aan ugu mahadcelinayaa martida sharafta leh ee dhammaan ardayda qalinjabinayso waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sida la ogyahay tacliinta malihin meelay ku dhammaatay sidii horeyba loo sheegay tacliinta waa wax joogta wax socda marka waxaan leeyahay ardayda dhalinyarada oo maanta ka qalinjibinaya meeshan waxaad ogaatiin inaad gasheen albaabka tacliinta aadna aynay ku qaadanaysa cilmigiina oo dhan inaad dhex socotiin marka u diyaargarooba inaad tacliinta iyo waxaad barateen ooga faa'iidaysiin ummaddiina ee aadna tustiin dadkii ku soo rafaaday inaad maanta sharafta meeshan sharafta lahaa taagan tihiin idin soo gaarsiiyey sidaad wada ogtihiin deegaankeenna waa deegaamada duruufadii hore jiray awgeed ugu dambeeya xagga caafimaadka iyo xagga tacliinta marka idinkoo soo bartay cilmigii ugu dambeeyey ee caafimaadka waa inaad u dhabar adeegtiin dhibaatooyinka ay kala kulmaan sidaad hawshiina ugu danleedeen dhinacna uga wadan lahaydeen waxbarashadiina هذا دبلوماده waxaa la idinka codsanayaa inaad xadhigga koofiyadda aad ka wareejisaan dhinaca kale una wareejisaan dhinaca waad mahadsantihiin ardayda ka qalin jibinaysa waaxda medical laboratoryga inaad fadhiisataan aan ka codsanayo hortiisaba inaan waqtigeyga ku qaadan doono si xalaal ah kuna dhamaysan doono inta aan ku jiro adeega caafimaadka bulshada ma ballan qaadaysaan waxaan ballanqaadayo xagga aqooneed ee aan leeyahay si aan dhibaato u gaarsiinin bulshada aan u shaqeynayo ma ballan qaadaysaan
qoyska iyo arrimaha gaar ahaaneed ee bukaanka ma ballan qaadaysaan waad mahadsantihiin hambalyo fadhiista daawadayaasha qiimaha qadarinta mudana waxa inta inoogu dhan barnaamijkeena caafimaadka toddobaadkan aanu ku soo qaadanay caawa xirfadlayaasha caafimaadka ee heer dibloma kaga qalin jabisay kulliyadda caafimaadka ee Jijiga waa diyaarintii iyo soo jeedisay Axmed Cali Axmed oo idin leh haddii Allah wada u leh ogolaado intaynu ku kulmi doono daawadayaal waxaan caawa idin soo diyaarnay qalin jabintii ardayda gabdhaha ka baranaysay muddadii 3 bilood waxyaabaha kala duwan ay u soo diyaariyeen xafiiska arrimaha haweenka ee dawladda deegaanka Soomaalida gabdhahaas oo tiradoodu gaadhayso 80 gabdhood oo isaga soo baxay 8 degmo waxaana qalin jabintaas gabdhahaas ka soo qayb galay